Halkani waa barta shidan. Daawadayaal maanta waxaan joognaa xeebta Liido. Xaqiiqdii xeebta Liido ayaa lagu qiyaasaa in horaantii sodomeeyadii ay noqotay xeeb soo jiidatay indhaha dadka ku nool magaalada Muqdisho. Tan iyo waagaas xeebta Liido waxay ahayd goob ku habboon dabaasha dadkuna ku nastaan. Xeebtan waxaa ku teedsan goobo ganacsi iyo taariikh dheer ku leh magaaladan. Intii aysan burburin dowladdii kacaanka, waxaa halkan ku yiilay baarar waaweyn oo lagu caweeyo. On ka xusuusto baar Liido 54 iyo Lumumba, goobahaas oo ahaa kuwa bila magaalada Muqdisho. Shidana nolosha habeenka magaaladan. Waqtigan Liido waa ay ka bulsho badan tahay waagii hore, waxaana indhahaagu qabanayaan dhismayaal dhaadheer iyo hoteelo casri ah oo la jaan qaadaya kuwa dunida maanta ka jira. Inkastoo aan la inkiri karin dhanka tayada adeega inaysan weli gaarsiisnayn halkii laga rabay. Dhulka xeebta ku teedsan waa dhulka ugu qaalisan magaaladan, waxaana laga hadlayaa milyuumaad lacag ah oo lacagta doolarka ah. Tartanka ganacsi ee ka jira xeebta waa mid muuqda, iyadoo culayska dhanka amniga ah ee haysta dadka ka ganacsada Liido ay ku kalifayso inay samaystaan ilaalo fara badan, iyagoo ku bixiya qarashka ugu badan macaashka ay ka helaan goobaha ganacsiga. Dad badan ayaa maalmaha Jimcaha iyo Khamiista ee fasaxa toddobaadka u yimaada dalxiis, hawo qaadasho iyo nasiino, iyadoo dadka qurbo joogga ayna qalbiyada ku hayaan inay soo gaaraan xeebtan Liido. Daawada xeebta Liido waxaa la mid ah midda jasiira oo iyaduna noqotay meelaha loo tago in waqti macaan lagu qaato. Waxyaabaha iga yaabiyey markaan soo booqdo xeebaha magaalada Muqdisho, gaar ahaan Liido iyo jasiira, ayaa ah in dadka ugu badani ay yihiin dhalinyarada, isugu jira gabdhaha iyo wiilasha, kuwaas oo qaarkood aysan ka muuqanin inay wataan dharkii dabaasha ama inay usoo diyaar garoobeen inay badda galaan. Sida dad badani ay sheegaan, waqtiga gabalku dhacana waxaa la sheegaa inay ku soo bataan dadka isticmaala balwadaha oo jooga waqtiga dambe ee xeebta iyo nawaaxigeeda. Daawade, halkani waa barta shidan, waxaanan idiin soo gudbinaynaa barnaamij aan ka soo duubnay xeebta Liido. Halkani waa barta shidan. Daawadayaal maanta waxaan joognaa xeebta Liido. Xaqiiqdii xeebta Liido ayaa lagu qiyaasaa in horaantii sodomeeyadii ay noqotay xeeb soo jiidatay indhaha dadka ku nool magaalada Muqdisho. Tan iyo waagaas xeebta Liido waxay ahayd goob ku habboon dabaasha dadkuna ku nastaan. Xeebtan waxaa ku teedsan goobo ganacsi iyo taariikh dheer ku leh magaaladan. Intii aysan burburin dowladdii kacaanka, waxaa halkan ku yiilay baarar waaweyn oo lagu caweeyo. On ka xusuusto baar Liido 54 iyo Lumumba, goobahaas oo ahaa kuwa bila magaalada Muqdisho. Shidana nolosha habeenka magaaladan. Waqtigan Liido waa ay ka bulsho badan tahay waagii hore, waxaana indhahaagu qabanayaan dhismayaal dhaadheer iyo hoteelo casri ah oo la jaan qaadaya kuwa dunida maanta ka jira. Inkastoo aan la inkiri karin dhanka tayada adeega inaysan weli gaarsiisnayn halkii laga rabay. Dhulka xeebta ku teedsan waa dhulka ugu qaalisan magaaladan, waxaana laga hadlayaa milyuumaad lacag ah oo lacagta doolarka ah. Tartanka ganacsi ee ka jira xeebta waa mid muuqda, iyadoo culayska dhanka amniga ah ee haysta dadka ka ganacsada Liido ay ku kalifayso inay samaystaan ilaalo fara badan, iyagoo ku bixiya qarashka ugu badan macaashka ay ka helaan
goobaha ganacsiga. Dad badan ayaa maalmaha Jimcaha iyo Khamiista ee fasaxa toddobaadka u yimaada dalxiis, hawo qaadasho iyo nasiino, iyadoo dadka qurbo joogga ayna qalbiyada ku hayaan inay soo gaaraan xeebtan Lido. Daawada xeebta Lido waxaa la mid ah midda jasiira oo iyaduna noqotay meelaha loo tago in waqti macaan lagu qaato. Waxyaabaha iga yaabiyey markaan soo booqdo xeebaha magaalada Muqdisho, gaar ahaan Lido iyo jasiira, ayaa ah in dadka ugu badani ay yihiin dhalinyarada, isugu jira gabdhaha iyo wiilasha, kuwaas oo qaarkood aysan ka muuqanin inay wataan dharkii dabaasha ama inay u soo diyaar garoobeen inay badda galaan. Sida dad badani ay sheegaan, waqtiga gabalku dhacana waxaa la sheegaa inay ku soo bataan dadka isticmaala balwadaha oo jooga waqtiga dambe ee xeebta iyo nawaaxigeeda. Daawade, halkani waa Barta Shidan, waxaanan idiin soo gudbinaynaa barnaamij aan ka soo duubnay xeebta Lido.